بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalow fatwada aan soo saarnay boqolkiiba boqol baa laga rajo qabaa inay hirgasho sababta culimadii Soomaaliyeed oo gudi iyo dibadba isaga timid ayaa oo itijaahyo kala duwan leh ayaa fatwada soo saartay marka shacabka Soomaaliyeed culimadiisa uu ku kalsoon yahay waxa laga hadlina ra'yi ma aha waa diin marka nimanka khawaarijta shariicada islaamku waxa ay ka qabto ayaa meesha lagu lafaguray marka xukunkoodana waa la sheegay marka fatwada jamaaciga ayaa la soo saaray oo nuxurkeedu ahaa nimankaas inaan maaragtay in lagu biiro iyo in laga mid noqdo iyo in wax la taro iyo in maaragtay loo dhaga nuglaado waxaasoo dhan shariicada inayna ku banaanayn marka fatwadii aad aragteen baa ka soo baxday marka rajo weyn baa laga qabaa inay hirgasho ayagana insha Allah qubuulatu durriye ku tahay bayaankiina waxa ku jiray in muddo 90 maalmood ah kadib shir kale aad qabataan shirkaasi muxuu kaga duwan yahay midkan aad bayaanka ka soo saarteen yaase ka soo qayb galaya waxa ka soo qayb galaya culamaa islaam oo Soomaali ahayn Soomaali iyo culimo kale oo caalamka ka iman baa ka soo qayb gali gaar ahaan dalalka dhibaatada takfiirka iyo nimanka khawaarijta wadamada ay soo mareen marka khibradaha la soo imanaya waxay sidii loola tacaalay dhibaatada ay soo mareen wixii waa khibrad la soo imanaya marka iyaduna wax badan bay siyaadinaysaa shirka dambana arrimaha shirka waan si aan baqaadi doonaa hase ahaatee waxaana soo gaaray saacadihii ugu dambeeyay war ah in ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ay xabsiga u dhaadhiciyeen Sheekh Cabduqaadir Soomow oo kamid ahaa wadaadadiini maxaa loo xiray ninkaas maya walaalo warka ma hayo Sheekh Soomow culumadii fatwada soo saartay buu ku jiray magaca ahlu sunna wal jamaa uu ku hadlaa oo fayeen u yahay xiritaankiisa ma aana maqal sabab loo xidhaana ma jirto warka ma garanayo warkaas anigu ima soo gaadhin wali inuu suurtagal yahayna uma malaynayo Sheekh Nuur haddaan gudaha u galno oo aan wax ka weydiiyo fatwada aad soo saarteen marka la eego siiqada hadalka iyo talooyinka aad siinayseen laamaha ammaanka ee dawladda iyo shacabka iyo dadka aqoonta leh waxay leeyihiin waxba kama duwanayn war-saxaafadeedyada ka soo baxa Mareykanka iyo qaramada midoobay saa wax daliil ah ma wadani hadda fatwadu nusuus way wadataa dhibaatadu waxa weeye meediyaha marka fatwa lagu waxa marka barnaamij laga sii deynayo waa la soo koobaa laakiin fatwadu way qoran tahay nusuustii iyo xadiis iyo aayadna way wadataa way ka buuxaan laakiin marka meediyaha lala hadlay meediyaha war badan ma sii deynayo qodobadii oo kooban baa la siiyaa marka laakiin ninkii raba fatwadii oo adiladeedii wadata way taalaa waana website-yadana la soo galin insha Allah shirkiina waxa ku jiray wadaadaha qaar oo si cad u sheegay in fatwadan aad soo saarteen iyo fakarkan aad kula dagaalamaysaan xarag jawaal mujaahidiin in sarkaal Ingiriis ah oo ku taliyay marka soo lama dhihi karo waxa daliil ka dhigateen nin Ingiriis oo gaal ah hadalkiisa hadda wax saayiga anigu maba aana maqal Ingiriis culimo fatwa soo saari iyo meel diin lagaga hadlayo Ingiriisku waa wadan gaala shaqulku ma laha mana aana maqal anigu gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo afhayeenka ayaan ahay sheekadaana lama socdo shirkan abaabulkiisii hore culimada soo jeedisay oo wuxuu ku yimid Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax ayaantii asagoo salaad ku jira garowga lagu dilay tacsidiisii ka qayb galay tacsida qabriga korkiisa anagoo joognaa fakarka culimadu soo jeedisay dawladda Soomaaliyeedna meeshay ku aqbashay intii ka dambeysayna shirkan uu abaabulkiisii waqtigii la qaban lahaa loo diyaar garoobayay marka arrin Ingiriis shaqul ku leeyahay ma waa dacaayad raqiis way waxaas Sheekh Nuurow hadalkaas waxa ka dhawaajiyay adiguna goobjoog ayaad ahayd Sheekh Ugaas Axmed Bile oo kamid ah ragga ugu sareeya culimada ictisaamka ma waxaad leedahay arintaas oo warbaahintu baahisay dadkuna hadal hayaan waxba kama jiraan Soomaalidu waa og tahay oo nin walba waxba iskaga hadlaa haddana nimankan khawaarijta laga yaabaa waxaas inay iyagu faafiyeen marka hadda nimanka warkoodana waxaan u malayn cid maqli oo dag jalaqu sinayna jirin marka culimada ay badaan iyagu waa murtadiin iyo waa gaalo waan leenaynaa bay dhahan marka kuwaas warkoodu macna ma laha marka fatwada culimada Soomaaliyeed bay ka soo baxday dawladda gaala ana shaqul kuma laha
marka shacbiga Soomaaliyeed taa hadda way garanayaan baa filaya. waayahay Sheekh Nuurow warkaas suuqa sida weyn ugu jira adigana aad tiri al-shabaab ayaa faafiyay waxna kama jiraan bal annaga ayaa hayna ka idaacad islaami ahaan codka Sheekh Ugaas Axmed Bile uu ku yiri sarkaal Ingiriis ah ayaa nagula taliyay in mabda jihaadiga ah aan kala hortagno mabda burburinaya haddaba waa kan nala dhageyso did Ingiriis oo irhaabka u qaabilsan baa maraan Ingiriiska tagnay wuxuu yiri wadamakan Misriisna loo dagaalami kara dawladda lama dagaalami karaan ولما إن وكان فكر بينه أي دوك كله هيا فكر كفوجا دين إنجليز أو إرهاب كأوقع بسبب مرة إنجليز كتجلي وحويلي ولما كان مثل مثل الله تجعله كذا الدولة الله تجعله كرامة ولما إن وكان فكر بينه أي دوك كله هيا فكر كفوجا وران كعنه الشيخ نور واد مقشي سماهن عدك وجاس أحمد بليه وان مقلي الدوات تاسي واحد أنا ملاها من إنجليز يريبو يري fikirka irhaabiga fikir baa lagu la dagaalami karaa dadin Ingiriis saa uu dhihi karaa annaguna sidaas aan qabnaa haddii aad sidaas qabtaan oo ninkaas Ingiriiska gaalka ah aad ku fikirtihiin see isleedihiin ummadan Soomaaliyeed ee muslimiinta ah way ku aqbalayaan bayaanaadka aad soo saaraysaan tan kale soo Allah subhanahu wa ta'ala ma uusan dhihin ya ayyuhalladheena aamanu in tudii'u fariiqan min alladheena utul kitaaba yaruddukum ba'da iimaanikum kaafiriin seed ku adeecaysaan oo aad ku qaadanaysaan nimankaas gaalada ah warkooda Ingiriis anagu talaka ma qaadano fakar culimada ka yimid buu ahaa culimadii baana hadda hirgelisay marka arinta yaan la qalloociyo ma aha laakiin Sheekh Nuur xitaa haddaan aqliga saliimka ah u laabano soo caabidin kuma noqonayso adinkoo culimadii sheeganaya in ninkaas Ingiriiska hadalkiisa aad daliishataan marna aad tiraahdo waan ku qanacsanahay waa sax marna aad tiraahdo gaalada hadalkooda ma qaadanay waa fikirkeena baya ceeb ma noqonayso bini'aadmiguna macluumaadka way isweydaasadaan marka waxay ceeb tahay iyo wax dhibaato ay leedahay midna ma leh waayahay taas aan ka soo gudubno waddanka Soomaaliya dhibaatada taala Sheekh Nuur waxa halbowlo u ah ciidamo shisheeye oo soo duulay oo gaala ah maxaad uga hadli laadihiin ciidamadaas oo aad isugu mashquulinaysaan ragga mujaahidiinta ah ee naftooda iyo maalkooda iyo dhiigoodaba u horaya sidii ay waddanka uga difaaci lahaayeen ciidamo shisheeye hadda ma aha mushkiladu ciidamo shisheeye ma aha ciidamo shisheeye waa la keensaday dhibaatada waddanka joogta inay wax ka qabtaan baana loo keenay waxaad ogtahay 2009 markii hay'adda culimada la sameeyay inaan shabaab iyo xisbul islaam iyo wixii dagaalamay aan ugu baaqnay inay hubka dhigaan ciidamada shisheeyana 4 bilood ay dalka kaga baxaan marka iyaga diiday oo dagaalkii sii waday marka ciidamada shisheeye waa ciidamo dawladdu ay ogtahay oo nidaam ku yimid nidaam hadana ku baxaya marka dhibaatada ciidan shisheeye ma waa shabaab dhibaatada waxaad ka mid ahayd culimadii fadwootay inay murtadiin yihiin raggii hogaamiyay kooxadyada sagaalka ahaa ee Mareykanka uu dhaqaalaha siiyay waxyaabaha aad fadwadiina u daliishanayseen wax cad ay ahaayeen ayado quraan bay ahaayeen waxaana raggaas dhiigooda lagu xalaashaday Mareykan oo ay u shaqeeyeen haddaba ciidamadan aad leedahay waa la keensaday sow isla Mareykankii ma keensan sow isla mabaadi'dii kama shaqeynayaan maxaad kuwaas ula dagaalanteen oo waliba Soomaali ah kuwana aad u leedihiin waa la keensaday maslaxad bay ka shaqeynayaan maya kuwaas waxay ahaayeen niman Mareykan watay bay ahaayeen waxayna yiraahdeen maxkamaduhu shariicada islaamka in dalka lagu xukumay rabaan sidaas ay u sameysmeen niman cadaawad diineed qabay ahaayeen aan ka dhaxgalay marka ma waxaad leedahay haddii hogaamiye kooxadyadii ay qabeen cadaawad diineed oo gaala ay u shaqeynayeen kuwan oo gaalo asli ah cadaawad diineed ma qabaan maya cadaawadii ciidamadan shisheeye waxay u yimaadeen diin ma aha waxay u yimaadeen waa ciidamo Afrikaana waa ciidamo iigad ah waa iigadna waxay u timid waa loo yeedhay niman xoog ku yimid ma aha markii la rabana way baxayaan waxay u yimaadeen waa ogtahay waddanka shabaab baa qabsan gaaray magaalada Xamar waa kii la dhihi jiray 4 kiiloomitir mooyaane magaalada shabaab baahayd marka waddan cadow qabsan lahaa bay cadowgii ka saareen oo ay dhaafeeyeen oo dhibaato weyn u geysteen marka cadaawadii bay bahayaan xeryahoodii ku jiraan shabaab bay la diriraan maalintii loo baahdana way baxayaan marka waxa ugu warwareegi ma garan ciidamadan AMISOM waxay yihiin waa la ogyahay
sheekh nuur magaca aan kugu waraysanayno waa taytal culimo waa culimadii fadwada soo saartay maxaa u daliil ah inaad tiraahdaan mujaahidiinta waa cadow ciidamadan ummadda Soomaaliyeed ay u gargaarayaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku leeyahay la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum marka daliil ma siin kartaa aayad ama xadiis sheegaya in gaalada ay muslimiinta u gargaari karaan afrikaanimo ama eeshiyaanimo afrikaanimo way ugu heeliyeen nimankan hadda arrimo diimeed oo ma joogaan muslim iyo gaalana way isugu jiraan gaalo kaliya ma aha wax kasta hatta haday gaalo yihiin arintu hadda ay wadankan u joogaan arrin diimeed ma aha waa nidaam dawli ayaa jira nimankan nidaam dawli ayay ku yimaadeen nimankaas inay la diriraan bayna u yimaadeen qadiyad diimeed ma farageliyaan masaajidkii ridiisa dadka isma taagaan xeriyahooda ay ku jiraan shabaab bayna la diriraan kolkii loo baahdana way baxayaan waxa la isku haysto masaajid ma ahan oo haddaba gaalada way ogol yihiin inaad dukato inaad soonto inaad xaj ka aado dayuurada raacdo boorsooyin waaweyn qaadato qamiis qaadato waxaas la isku haysto waxa la isku haystaa shariicada islaamka ayaa shaqeynaysa iyo dimuqraadiyadda ayaa shaqeynaysa dadka aad leedahay nidaamka dawligana waa qaramada midoobay iyo Mareykanka marka Sheekh Nuurow ma waxaad leedahay Mareykan oo gaal ah iyo qaramada midoobay oo ah dawaaqeeda ugu sareysa caalamka ayaa waxay ka shaqeynayaan maslaxada ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed maslaxada ummadda Soomaaliyeed bay ka shaqeynayaan wadankan al-Qaa'ida ku soo duushay khalkhal ba ummadda nolosheedii la galiyay wadankii baa la dhamaynayaa marka nidaam dawli ayaa jira wadankii dhibaato sidaas oo kale ay ku dhacday in loo gurmado ciidamo la geeyo marka nidaamkaas ay u joogaan niman diin hadda ku soo duulay ma aha waa tahay Allah